naadiga akhriska iyo qoraalka ee halkaraan burco oo ka mid ah naadiyada ugu caansan ee dhinaca akhriska iyo qoraalka ayaa habeennimadii xalay ahayd magaalada Berbera ku soo bandhigay labada buug ee kala ah mucjisooyinka quraanka kariimka iyo dirkii mucaashiqiinta oo ay kala qoreen labada qoraa ee Abwaan Ibraahim Xamari iyo qoraa Bashiir Raacdeeye iyadoo munaasabaddan ay ka soo qayb galeen maamulka degmada Berbera maareeyaha ama shidaalka Berbera iyo mas'uuliyiin kale oo ka socotay hay'adaha laamaha dawladda ee gobolka Saaxil sidoo kale waxaa munaasabaddan qayb ka ahaa dhalinyaro aad u tiro badan oo iyagu soo buux dhaafiyay hoolkii lagu soo bandhigay bugaagtani munaasabaddan ay soo qaban qaabiyeen naadiga akhriska iyo qoraalka ee Berbera Readers and Writers Club ayaa waxaa xalay munaasabaddan lagu qabtay hoolka hay'adda Yufenco ee magaalada Berbera Mustafa Cismaan Cabdiraxmaan Mustafa Teacher oo isagu ku hadlayay afka naadiga akhriska iyo qoraalka ee halkaraan burco daafurayna munaasabaddan ayaa waxa uu warbixin kooban ka bixiyay safar ay qoraayada naadiga halkaraan ay ku tagi doonaan qaar ka mid ah gobolada Somaliland kuwaas oo ay ku soo bandhigi doonaan bugaag kala duwan oo ay qoreen qorayaasha naadiga akhriska iyo qoraalka ee halkaraan ee magaalada burco iyo macnaha ku duuban bugaagtaasi ay juhdiga iyo waqtiga dheer geliyeen waan jecelahay inaan gobolada dhan ku soo bandhigno bugaagta awoodo gobolka Berbera ama gobolka Saaxil waxa uu gobolku ugu horeeyay nasiib u yeeshay inaan caawa ku soo bandhigno gobolada Somaliland aan ugu horeysiino magaalada Berbera inaan bugaagtaasi ku daahfurnaan ku soo bandhigno keliya waxa ka horeysay burco oo lagu soo bandhigay Abwaan Ibraahim Cabdi Xirsi Xamari iyo Bashiir Saleebaan Aadan Raacdeeye oo kala ah labada qoraa ee kala qoray bugaagta mucjisooyinka quraanka kariimka iyo dirkii mucaashiqiinta martina looga ahaa inay goobtaasi ku soo bandhigaan waxyaabaha ku kalifay qoritaanka buugtani ayaa qoraayadani iyagoo faahfaahin kooban ka bixinaya bugaagtan iyo xikmadda ku duugan waxa hadaladoodii ka mid ahaa buugga la yiraahdo mucjisooyinka quraanka sababta loo qoray ayaa waxay ahayd quraanka mucjisooyinkiisa waa qoray laakiin waxa la yiraahdo quraanka mucjisooyinkiisa inaan ahayn buug gaar wax lagu soo koobo biology chemistry physics geography waxa kaloo aan iska bal xisaabta kaliya ku qormas waxa la ogaaday xisaabta quraanka ku jirta inaan buuggaas ugu soo koobo haddana basket one number buugga dhanka one number ayaa qoran xisaabtiisa calculationkiisa laakiin waxaan idin siinayaa oo kaliya anigoo ka soo qabanaya sangaabta nuxurka buugga uu sido la yiraahdo dirkii mucaashiqiinta marka ereyga mucaashiqiin soo xastaan waxa laga yaabaa inay dhagihiina ay markiiba ku soo dhacdo intiina uu halkaas ku yiri jacayl kuna ajqayo boodhag iyo nin halkii bugtay oo si gaar ah u soo xasuusto laakiin buuggan dhan kale marka laga eego wuxuu ku saabsan yahay arrin bulshada si gaar ah u khuseeyo waa arrin mujtamaceena si gaar ah u sii taabanaysa aadna u horumaraysa buuggani si kale marka loo eego waa waxa ingiriiska inta badan lagu yiraahdo novelada ama buugaagta sheekooyinka dalawaalka ah maayirka degmada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Ciideen iyo maareeyaha ama shidaalka Berbera Sheekh Saleebaan Siciid Cali iyo sidoo kale gudoomiyaha naadiga akhriska iyo qoraalka ee Berbera Maxamuud Jaamac Dhagaweyne oo iyaguna ka hadlay munaasabadani ayaa goobta uga mahadnaqay qoraayadani iyaguna mas'uuliyiintani ugu duceeyay qoraayadani in alla aqliga iyo cilmigaba u barakeeyo in lagu daydana ay mudan yihiin magaalada saddex baan la yaabay ويانا ما يوقع علينا لا يسمعون على أبينا نو عليه هو أنا يوم الدراسة جاي لا يبغى نو عليه هو حسابته سوريا أنا وياه نو عليه هو اسمه قال إلى سبحانه وتعالى وعليه وعليه لا يبغى إلى يذكر ويقول عن هذا الذي هو كنت قلت لما كنت أنا وأنا كنت تسير يقول الله سبحانه وتعالى وصل له تظهر حتى لو بدو الشيء إلى وجه السلام ورحيم إن شاء الله كنت أبي هذا حقوق هذه أنا لي نوري وقراء ولا قرأت
buuggana aadkii aadkoo qiimaha badan leh ee ka hadlaya ijaaska qur-aanka dhinaca xisaabtiisa iyo buuggan kale isaga caawaninoo laakiin dirka mucaashiqiinta la yidhaah hadal ma istaagin wuxuuna jeclayna soo geeyo martida nololtiisa oo qoraalosha runta qiimaha badan leh caawa halkan inooga jeednay ayaan jeclahay inaan aad iyo aad u mahadnaqo mar labaad iyo mar saddexaadba. bandhiga bugaagtani ee ay naadiga halkaraan kusoo bandhigeen magaalada berbera ayaa waxa uu qayb ka yahay safaro iyo socdaalo kala duwan oo xubno ka mid ah naadiga halkaraan ay ku tegi doonaan qaar ka mid ah gobolada Somaliland kuwaas oo ay kusoo bandhigi doonaan bugaag kala duwan oo ay qoreen qorayaasha naadiga akhriska iyo qoraalka ee halkaraan ee magaalada Burco. Khalid Xasan Kharash, telefishinka madaxa bannaan ee Bulsha TV magaalada Berbera.